waxaa shalay garoonka Engineer Yuriso Stadium ee magaalada Muqdisho ciyaar aad u kulul ku dhexmartay xulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale xulka gobolka Banaadir ciyaartaas ayaa waxa ay ku soo gabagabowday 3 gool iyo gool ay markaasi ku awood roonaatay xulka gobolka Banaadir markii ay soo gabagabowday ciyaarta ayaa waxa markaliya baraha bulshada Soomaaliya wada qabsaday war aan u roonayn dhagaha jamaahiirta iyo sidoo kale shacabka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo waxa la weeraray baskii ay saarnaayeen xulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa isbitaalka la geeyay tiro ciyaaryahanno wariyaal iyo taageero ka tirsan xulka Koonfur Galbeed Soomaaliya hadaba qaar kamid ah shacabka ku nool degmada Wanlaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa aragtidooda ka dhiibtay falkan lagu weeraray xulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale qaar kamid ah taageerayaasha xulka Koonfur Galbeed Soomaaliya haddii uuna bulshada reer dhalinyarada reer Wanlaweyn ka Wanlaweyn may ku xugnaa dhacdadii shalay ku dheeday gobolka Banaadir dhammaan mas'uuliyiinta Banaadir ma inka baaqana intii arintaas iyo ku jawaabaan sababta tahay dhalinyaro ciyaaran saati isdhexgalsho bulshada saati in dhibaato walun ku xugno way mana aqbal korna gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Finish maylana si degdeg ah aan ku taliya arintaas wala ka habboon ma wal dhalinyaro ka habboon ma wal bulsho ka habboon ma in ciyaartooydii maartay ciyaarasi in maartay qabyaalad lagu dhigo wala aad u xogoon mana weel korna waran ku aqbalaan ma wabillahi tawfiq hadii uu dadka kinool Koonfur Galbeed khaasatan degmada Wanlaweyn may cabasho ku inee ciyaartii shalay oo ku dhiyaasi stadium Koonis kulli ciyaar ma way guul iyo guul daro way dib male lano guuleysida in qaadana laakiin ma in qaado way signaa dhacdadii oo ciyaartooydan oo baska saarayaan oo la sameeyay oo dhagax likigam walba dhala ee likigam oo dhaawac kinagadeen isbitaalka Digfeer la jeeyay markii isbitaalka Digfeer la jeeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha amniga gobolka Banaadir Cali Yare ilaa hadda wala jawaab ay ku biyan ma jirto Cali Yare inta isbitaalka saad ciyaartooyda booqad isoo sabri iyo hadana baraha bulshada may soo dhikay baska oo ciyaartooyda saarnaaytay oo ka qoran gobolka Banaadir oo isku lijeedo mayliya ciyaartooyda gobolka Banaadir saarnaaytay amal taageerayaasha Koonfur Galbeed ka weeraran amal oo taas min qaadadaano dibka walaa jeesid ahayna taageerayaasha gobolka Banaadir gobolka may ku codsadaan intii arintaan iyo war degdeg ay ku soo saaraan dhacdadan dadkii ku damboytii intii gacan bir ay soo qabadaan ilaa may meelaas caasimadda Soomaaliya oo ummadda Soomaaliya dhan ku dhaxayto way dibkaan la sameeyay caasimadii Sumcadiya ka dalimaase insha Allah hadii una taageerayaasha Koonfur Galbeed khaasatan degmada Wanlaweyn may bal dhahaane arintaas si dhab ee war halung soo saaroy ma aad iyo aad ku xugnaa shalay dhibaatadii ninjaysi gobolka Banaadir koob ku soo dhiga maamul goboleedyada Engineer Yuriso aad iyo aad ku xugnaa intii uu loo baawarka gobolka Banaadir la kulay calan walba kima sawirin gobolka Banaadir way Banaadir la ku xukumay walba laakiin in la dhaho taageer Koonfur Galbeed buriyeen dhagaxayeen iyo dhagaxayeen maamul gobolka Banaadir may ku rajeeyaan in leen ganaaxo gobolka Banaadir taageeradiyo aad iyo aad ku codsadaan in kulanka finaalaha taageer la'aan deegaan may aad iyo aad ku xugnaa dhibaato ninjaysi gool oo qalad nin sax aad iyo aad ku xugnaa may ku rajeeyaan gobolka Banaadir maamulshay in ganaaxo taageer dhan lu kansalo gobolka Banaadir kulanka finaalaha aad iyo aad ku xugnaa haddii uu eeno dadka kinool degmada Wanlaweyn iyo nawaaxishe way dacwad ku ena dacwad ku ena arimihii shalay ku dhiyeen garoonka dhibaatadii lingijeesidii ciyaartooyda Koonfur Galbeed taasa aad iyo aad dacwo ku ena waxyaabaha oo laga suubiyo ciyaartooyda Koonfur Galbeed waa wax oo geeglin dulqaadada korma dad oo macnaha oo lagu badi saas lin dandareysda ama saas lin gali hadii badinaan ma laga suubiyo lahay way marka way macna ku aslaan inay degdeg arintaas soo taliyaan gobolka Banaadir marka arintaasna waa arin hadda geega oo lagu jiifidi karo ama lagu aamus karo ma marka hadii uu eeno dadka kinool degmada Wanlaweyn way aad iyo aad mar koowaad mar lamaad mar saddex dacwad ku ena dacwo arintii shalay oo la ka ahayti oo laga suubi ciyaartooyda oo ku socoti Koonfur Galbeed assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ayaal oo banoon ciyaarayo oo ardaya ku lamada meelood oo ciyaarayaan waa walaalahayn cid badisay in oo dhagax lagu tuuriyo oo rasaas lagu rido oo la xabadeeyo waa ka xunnahay anaga waxaan nahay dad Soomaaliyeed
oo ku nool degmada wanlaweyn waxaasoo kale mana yeelayno mana yeeli doono ummad Soomaaliyeed salaamay ma salaam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu armi shalay xamar ku dhiyaan golonigii koonfur galbeed iyo banaadir ciyaar lusku badiye adan aad maan ku xognaa in badis iyo dhagax liski daro aadan qoomanaya dir koonfur galbeedeen degmada walweyn dadiyaan aadan ku xiyaan arimaas meel ku dhiyaan maamulka gobolka banaadir iyo sidoo kale laamaha amniga u qaabilsan garoonka injineer Yariso Stadium ayaa ilaa iyo hadda aan waxba ka soo saarin dhacdadii shalay ka dhacday garoonka Cabdiqani Maxamed Xasan raadiyaha iyo telefishinka koonfur galbeed Soomaaliya degmada walweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose